halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warbixin iyo falanqeyn aanu barnaamijkan ku sameeyno kuna faaqidno waxyaabaha daabad doontaan waxa kamid ah daawadayaal saaxiibayaal bini aadam ayaa nahay ma ihi bahal mukhtaar robow cali abu mansuur wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya oo ka hadlay waraysi uu siiyay warbaahin caalami ah oo dalkaas Ingiriiska laga leeyahay oo kaga hadlay arrimo dhowr ah waxaan soo gudbin doonaa warbixin aanu arrimaha ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono waxa uu difaacay go'aanka uu ku noqday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo dad badan dhaleeceen ay muujiyeen kuwa badan ay taageereen waxaan soo gudbin doonaa isla wargeyskaasi oo isna uu la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabihii uu ka yiri Xasan Sheekh Mukhtaar Robow waxaan falanqeyn ku sameyn doonaa sheekada ku gadaaman Mukhtaar Robow ma dhiibeyno maxay ka dhigan tahay sidoo kale warbixin ayaa ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa saaxiibada sida tooska ay noogu xiranow waxyaabaha kale daawad doontaan barnaamijkan aynu ku falanqeyn doono hadduu alweyne u qadaro waxa kamid ah madaxweyne Dani oo ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fashilinta dimuqraadiyadda Puntland waxaan soo gudbin doonaa warbixin aan arrintaasi ku falanqeynayno kuna faaqideyno qodobada ayaanu falanqeyn ku sameyn doonaa ee soo dhawaada oo ku biira daawadayaasha nagu xiran si aad qayb uga noqotaan wararka dhacdooyinka iyo warbixinada daawadayaal aynu ku bilowno Mukhtaar Robow waxa uu leeyahay bini aadam ayaa nahay ma ihi bahal wasiirka awqaafta diinta ayaa difaacay go'aanka uu markaasi ku noqday wasiir xukuumadda ka tirsan wasiirka awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya Mukhtaar Robow cali abu mansuur ayaa waraysi uu markaasi hoygiisa Muqdisho ku yaala uu ku siiyay wargeyska caanka ah ee Ingiriiska ka soo baxa ee The Guardian ayuu uga waramay arrimo kala duwan oo wax laga weydiiyay Robow oo lagu soo tababaray dalka Afghanistan xilligii uu socday dagaalkii ka dhanka ahaa Soviyetka ayaa xabsi guri ugu jiray dawladii farmaajoontii u dhaxaysay 2018 ilaa 2022 ma jiro wax kiis maxkamadeed ah oo weligeed la igu soo oogay ayuu yiri Mukhtaar Robow oo aaminsan inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayo in lagu qaarijiyo intii uu xabsiga ku jiray sida uu sheegay Abu Mansuur ayaa doorkiisa dawladda ku tilmaamay wacyigelin dhanka fikirka ah kuna boorinayo culimadu inay ka hadlaan al-shabaab si ay u soo celiyaan islaamka saxda ah kana hortagaan fikirka qaldan isagoo si hadlaya Robow ayaa ku adkeynaya in muddo dheer uu khilaaf dhanka fikirka kala dhaxeeyay xogaga xiriirka la Al-Qaacida isla markaana uusan raali ka ahayn arxan darada ay wadaan waan ku markaasi khilaafay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ayuu hoosta ka xariiqay Mukhtaar waxaan ahay bini aadam ma ihi bahal ayuu si raaciyay isagoo u muuqday mid difaacaya isbeddelka ku yimid mowqifkiisa si kasta oo xaaladda noqoto jariirada laga leeyahay Ingiriiska ee The Guardian ayaa cadeysay in waraysigu ay la yeesheen Mukhtaar Robow uu ka dambeeyay kadib codsi si gaar ah uga yimid madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxtooyada Soomaaliya ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxay martiqaad u fidisay wariyaal kala duwan oo reer galbeed ah ujeedada ayaa lagu macneeyay si ay fariinteedu uga iibiso deeq-bixiyaasha caalamiga ah beesha caalamka ayaa saameyn ku leh arrimaha Soomaaliya markay timaado dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo bixinta taageero maaliyadeed oo lagu soo codsiyo shaqooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii dib loo doortay 15 May 2022 wuxuu qaaday dagaal ka dhan al-shabaab guulo ayuu ka sheegtay howlgalladaasi balse wuxuu weli maaro u leeyahay qaraxyada iyo dilalka gaadmada ah sida ay markaasi tibaaxayaan wararku geesta kale isla Xasan Sheekh Maxamuud oo wargeyskaasi caalamiga ah la hadlay waa The Guardian wuxuu sheegay in Mukhtaar uusan u dhiibi doonin hubka balse ay markaasi si kale loogu shaqeyn doono madaxweynuhu isagoo la hadlaya The Guardian wareysigaasi wariyaasha caalamiga ay la yeesheen ayuu kaga hadlay arrimaha ku gadaaman awqaafta iyo arrimaha diinta federaalka wasiirkooda Mukhtaar Robow Xasan Sheekh ayaa qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya sheegay inaysan ku jirin hub la siiyo ama loo dhiibo Abu Mansuur si uu fariimaha dagaalka ugu wajaho kooxdaasi gacan saar kale leh shabakadda Al-Qaacida hub ma siinayno maanta mana ka codsanayno inuu dagaalamo balse waxa uu noqon karaa mid waxtar leh oo aan adeegsan karno ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud isagoo wareysi siinayay isla majalladan laga leeyahay dalka Ingiriiska isla Mukhtaarna wareysiga ka qaaday Robow ayaa kaalintiisa xukuumaddu wuxuu ku sheegay
furinta dhanka fikirka. Maamulka Xasan Sheikh ayaana ku dhawaaqay dagaal dhanka militariga, dhaqaalaha iyo caqiidada ka dhanka ururkaasi shabaab. Tan waxay ka dhigan tahay in Abu Mansuur uu hogaamin doono duulaanka dhanka dacayadaha warbaahinta dowladda. Toddobaadkan wuxuu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku wareejiyay qorshe howleedka wasaaraddiisa. Warar ayaa sheegaya in qorshahan uu qayb ka yahay telefishin cusub oo laga hirgeliyay warbaahinta dowladda. Madaxweynuhu oo dhawaan tagay qaar ka mid ah furimaha dagaalka al-shabaab ayaana aaminsan in Robo uu ku qancin karo ugu yaraan qaar ka mid ah asxaabtiisii hore ay kaga soo goosatay dowladda. Waxaan rabnaa inaan tusno hoggaanka sare al-shabaab in haddii ay isa soo dhiibaan aan la bahdili doonin oo aan si xun ula dhaqmin, ayuu sii raaciyay isagoo difaacaya xulashada Robo uu u xushay xukuumaddiisa. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si rasmi ah wuxuu u xaqiijiyay in Robo uu sameeyay qaar ka mid ah habab isgaarsiineed oo uu la sameeyay xubnaha dhexdhexaadka ah ee al-shabaab uuna ku dhiirigelinayo inay dhinac markaasi u kala wareegaan. Ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku nuxnuxsaday in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay ciribtirto dagaalamayaasha markaasi baaqiga ku al-shabaab. Waxaan u adeegsanaynaa usha iyo markaasi karootada si isku mid ah, ayuu hadalkiisa sii raaciyay mudane Xasan Sheikh madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Dani waxa uu eedeeyay in Xasan Sheikh Maxamuud uu soo weeraray hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland, isagoo sheegay ama uu ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud fashilinta dimuqraadiyadda Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud inuu ku wado fashil hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani oo habeen hore la kulmay guddi wasiirada oo xukuumadda qaabilsan dardargelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu adeegsanaya xubno madax ka ururada siyaasadda Puntland uu abaabulay go'aankii maalmo ka hor ururada ay uga hor yimaadeen nidaamka loo wado doorashooyinka dadweynaha ee degmooyinka, kuna baaqeen in dib loo dhigo diiwaangelinta codbixiyaasha. xubno ka mid ah wasiirada ka qayb galay kulanka ayaa sheegaya wasiirada ama markaasi warbaahinta in madaxweyne Dani uu ka sheegay kulan in aan loo joojin doonin go'aanka ururada siyaasadda ayna guddida ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ee TPIC wadaan ama markaasi wadan doonaan shaqadooda, sida qorshuhu yahayna 13 bisha December la bilaabi doono diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo codka ah. Madaxweyne Dani ayaa tilmaamay inuu Xasan Sheikh Maxamuud kula kulmi doono Muqdisho si uu uga daayo faragelin doorashooyinka Puntland inta ka horeysana la joojiyay wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ee dowladda. Saciid Dani ayaa intaa ku daray in marka uu soo laabto caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo sabtidii uu markaasi u socdaalay uu la kulmi doono ururada siyaasadda Puntland kana dhageysan doono gunta doodooda sida laga dhawaajiyay. Waxa kale oo uu sheegay inuu ku guuleystay in ajendaha baarlamaanka Puntland uu ka saaray u yeeridda guddida doorashooyinka TPIC iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, una faray xubnaha inay shaqadooda dardargeliyaan si aan waqtiga uga lumin iyo culeysada ugala kulmin xubnahooda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Puntland. war ka soo yaray madaxweynaha Puntland ayaa u muuqda mid wasiirada Puntland ugu mashquulinayo safarkiisii Muqdisho oo ay hareeyeen xogo la xiriira inuu dana shakhsi ah u aaday caasimadda dalka si loogu fuliyo ballanqaadyo uu horey ugu sameeyay Xasan Sheikh Maxamuud, kuwaas oo salka ku haya dhaqaale iyo magacaabista xubno markaasi ka agdhow taasi oo arrimaha dhaqaale ee madaxweynaha maamulkaasi Puntland uu aaday Muqdisho Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ay kala hadleen barnaamijyadeena maanta ee soo aadan aanu ku falanqeynayno saaxiibada sida tooska inoogu aadan oo qeybaha kale ee barnaamijyadeena. inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan ku biir ka mid noqoda wadaasha ku xiran si aad qayb uga noqotaan wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halka ku falanqeyno kuna faaqidno. qodobada iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu falanqeynay idinkuguna faaqidnay. ha hilmaamin inaad la gareeso oo aad share gareeso sidoo kalena qaybta hoose aragtidaadii waxay kula tahay noo dhaafta daawade. halkan waa nuxurka wararka u soo doono warar warbixino iyo dhacdooyin kuwada daahsoon iyo kuwada muuqda, adigoo markaasi alaaba halkan aan idinkugu soo gudbino xogo iyo dhacdooyin wax ku ool ah oo dadku markaasi si weyn u xiiseeyaan. ha hilmaamin inaad la socoto oo aad share gareyso si aad saaxiib uga noqotana la garay sidoo kalena share garay.